waxaan baaq u dirayaa oo waxaan u dirayaa fariin halkan golaha guurtida iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xeerkan ku dambeyn doono oo nala eegi doona waxaan leeyahay xeerkani xeerkii waddanka lagu dhaqayo weey marka laga reebo xeerka marka laga reebo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadweynuhu codeeyeen xeerkani xeerka dawladdu ay soo saarto ee golayaasha sharci dejintu ay soo saaraan xeerka ugu muhiimsan weey waayo waa xeerkii waddanka lagu dhaqayo golaha guurtida halkan fariinta waxaan uga dirayaa wax weey xeerka si liidata buu nooga soo baxa waxyaalo badanna way ka xun yihiin sabab ay ku tahayba laguma salayn ee doodii mudanayaasha laguma salayn haddana waa loo codeeyo de majority-gayagii uu ka soo baxa waxaan leenahay xeerka aad iyo aad u darsa siduu nagu dhaafay yuu idinku dhaafay baa leeyahay madaxweynaha fariinta fariin la mid ah baanu aan u diraya waxa weeye isaga gacanta ugu dambaysa leh waxaan leenahay xeerka waa in la saxaa waa inuu cadaalad ku dhisnaadaa waa in loogu qaybiyaa degmooyinka iyo dalka si macquul ah si cadaaladeed waxa cid waliba xaq ay leedahay waa in la siiyo degmo waliba hadday xaq u leedahay hadday bi xaq u leedahay hadday si xaq u leedahay hadday dhii xaq u leedahay waa in lagu qoraa waxa jira maanta marka laga yimaado lixdii degmo hore Ingiriiska degmooyinka maanta dhiida ku qoran waxa kamid ah kuwa sub district ah bariga Ingiriiska xaq bay leeyihiin oo population leh xeerku wuxuu sheegayaa afar qodob in maxay ahayd lagu waxay degmada ku noqon karto meeshana waxay gobol ku noqon karto waxaan leeyahay aan fariinta u dirayaa waxa weeye dalkeena waa inuu cadaalad ku dhisnaa dawlad noqon mayno waxaynu ka cabanaynaa koonfur Soomaaliya sidii laynoo galay haddaynu maanta inagu cadaalad wax ku qaybsan weyno oo aynu cadaalad umadeedna ku dhiqi weyno waxba kaga duwanaan mayno dadkii aynu ka cabanaynay oo ummadii aynu ka cabanaynay ee dulmiga isku inagu xukumay waana la isku dhacaya ummaduna way iska hor imanaysaa waxa kale halkan baa uga diraya degmada Caynaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaheeda sababtoo ah xaqooda inay muujiyaan oo mudaharaad salmiya ku muujiyaan xaq bay u leeyihiin waana qabaa inay muujiyaan ilaa xaqooda inay helaan ay wadaanna waan aaminsanahay waan ku taageersanahay laakiin waxaan doonayaa dad baa wax jajabiya dad baa nabadgelyo darro sameeya dad baa xumaan sameeya dad baa anigu waxaan leeyahay cidna ha caayna nabadgelyo darro ha samaynina wadooyinkiina iyo maxay ahayd xafiisyadiina ha iska burburinina wanaag ku mudaharaada laakiin waxa weeye xaq baa u leedihiin inaydaan dhigin waxa xaq u leedihiin iyadoo la idin ogolaado mooyaan taasaan soo jeedinaya